asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha ku xidhan janalkiina qubtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub moogi haddaa tahay ku wararka la socda iyo ku aan wararka la socdaynba laakiin waxay ila tahay in guud ahaan caalamku waayihii u dambeysay uu afka ku hayay qadiyadii u dhaxaysay labadii lamaane ee kala tegay ee Johnny Depp iyo weliba Amber Heard maanta muuqaalkeenuna waxa uu ku saabsan yahay shakhsiyadda Amber Heard ee isku qarinaysay wejiga malaa'igta ama wejiga wanaagsan huwaneyd laakiin gudaheedu uu ahaa shakhsi aad u xun daawashacan muuqaalka dhammaystiran laakiin intiina muuqaalka u gudagelin fadlan haddaa janalka ku cusub tahay subscribe sar video wanaagsan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Amber Heard waxay ahayd gabadh aan helin caanimadii ay u baahnayd ilaa yaraanteedii laakiin waxay caanimo heshay markii ay ugu abaalgudday kii nolosha kasoo bedelay una soo bedelay masraxa weyn ee Hollywood iyo mid inay noqoto ka mid ah dadka ugu magaca dhaadheer leh Hollywood waxayna abaalkiisii ka dhigtay inay maxkamad saarto markuu ku codsaday in ay kala tagaan laakiin waxay noqotay sheekadu inqalaba sixru cala saaxir oo ah inay dhibaatada iyadoo ay la damacsanayd iyadu madaxa ka fuushay intii in ka badan haddaba aan waxoogaa yar ka ogaano qisadeeda iyo weliba nolosheeda Amber Heard siday ahayd Amber Heard waxay dhalatay 22-kii Abriil 1985 waxayna ku dhalatay Austin ee dalkaas Mareykanka waxayna ka dhalatay qoys meel dhexe ah iyadoo hooyadeeda ay ahayd mid wax ka dhex baadha internetka xagga aabaheedna uu ahaa mid ka shaqeeya dhismaha waxayna go'aansatay iyadoo da'yar jirta inay ku xaqiijiso wax walba oo ay ku qaadato ayna noqoto qof caan ah lacagna leh xitaa haddii ayna lahayn xirfadii loo baahnayd waxay rabtay in si uun ay ku gasho caalamkaas waxayna madarsadeeda San Halkan kaga biirtay dhinaca jilliinka u qaabilsan madarsadda ugu dambeyntiina St Michael oo ahayd madarsad Kaatooliga waa laga soo eriyay markii ay caddaysay inay tahay mulxidad intaa kadibna way ka soo safartay meeshii ay ku noolayd waxayna u soo safartay New York iyadoo raadinaysa fursad ay ku noqoto model ama gabdhaha dharka xayeysiiya ugu dambeyntiina markay taasina shaqayn weyday waxay go'aansatay inay u dhaqaaqdo shay kale oo yaab geliyay dadkii garanayay iyo weliba intii maqashay waxa ay samaysay waxayna samaysay waxa uu ahaa inay ka soo qayb gashay xaflad lagu taageerayo dadka isku jinsiga ah ee isqaba ee loo yaqaano LGBT-ga iyadoona tiri waxaan ahay gabadh LGBT ah waxa ayna soo kaxaysatay gabadh lagu magacaabo Tavis Ryan in ay tahay lamaanaheeda intaa kadibna waxa ay boos ka heshay filin uu jilayay Johnny Depp ee lagu magacaabo The Ram Diary haddaba siday isku barteen waxay ahayd 2012kii ayaa waxay isbarteen jilaaga caanka ee Johnny Depp lamana garanayo waxa ka dambeysay inay isbartaan waxaana badanaa loo malaynayaa inay isku barteen filinkaas The Ram Diary markii ay wada jilayeen 3 sano oo xiriir uu ka dhaxeeyay saaxiibtinimo iyo girlfriend iyo waxay gaaladu isticmaalaan ugu dambeyntii waxay isguursadeen 2015kii waxayna saas ku noqotay mid ka mid ah magacyada ugu magaca dhaadheer Hollywood ma aha inay kasbatay dadaashayna ayna ka soo muuqatay xirfado iyo filimaan badan oo jishay laakiin waxa weeyaan maadaama ay xaaskiisa tahay mid ka mid ah magacyadii ugu dhaadheeraa waqtigaas atooraha weyn ee Johnny Depp qisadooda haddaan dib u yar dhigno oon ka warramno iyada dowrasha iyo waxyaabaha ay soo qabatay waa waxyaabo u baahan in qaar laga sheego waxayna yara caan ahayd intii u dhaxaysay 2004 ilaa 2006 iyadoo ka soo muuqatay barnaamijyo dhowr ah sida barnaamijkii Jar Poppy iyo weliba Ozzy iyo weliba qaar kale oo aad u fara badan laakiin mid ka mid ah dowrashii ugu muhiimsanayd ee qabatay waa filimkii ay la jishay Johnny Depp ee lagu magacaabay The Ram Diary oo la soo daayay 2011kii iyo weliba filimo kale oo badan sida Danish Girl iyo qaar kale oo aad u fara badan sida Justice League iyo weliba Aquaman laakiin haddaan ka warramno guulaha ay xaqiijisay inta ay ku jirtay shirkadda Hollywood aan ku dhaho wax guula mayna xaqiijin welina mayna dhicin in stageka la soo istaajiyo lana guddoonsiiyo hal jaa'iso haddaan usoo noqonno qadiyadii ugu caansanayd inta ay nooleyd ee soo marta ee kala dhaxaysay ninkeedii hore ee Johnny Depp waxaana laga yaabaa in magaceeda aad ku maqashay qadiyada darteed gabadhii mulxidada u noqotay sida ay caan u noqon lahayd iyo weliba u taageertay qolada LGBT-ga kana noqotay mid ka mid ah qoladaas si ay u hesho caanimo iyo weliba magac iyo weliba lacag ayaa markii koowaad waxa ay ciyaartay booska dulmanaha iyadoona sheegatay in loo geystay wax walba oo dhibaato ah oo ay gabadh la kulmi karto intii maxkamadda lagu jirayna Johnny Depp waxay u muuqatay in uu jeclaa Amber Heard isagoo maxkamadda dhexdeeda ku faaninayay sheegayna in ay jeceshahay waxyaabo ka mid ah oo uu isagu jecel yahay sida muusiga
iyo weliba fanka iyo waxyaabo badan oo uu jecel yahay isagu. Waxauna sheegay inay tahay gabadh caqli badan, aad iyo aadna u caqli badan, wanaagsanaydna laakiin muddo kadib si kadis ah isku beddeshay. Waxauna sheegay muddadii u dambeysay isbeddeshay in uu ku arkay xanaaq badan, lana dagaalami jirtay maalin walba si joogto ah. Xagga ay ka qaadi jirtay sawirro isaga oo cabsan, joogana meelo aan loo baahnayn, una diri jirtay qaar ka mid a asxaabteeda si ay iigu jeesjeesaan. Waxauna ahaa intaasoo dhan Johnny Depp mid u dulqaadanayay wax walba oo dhiba ay ku samayso ilaa ay ka dhimatay hooyadii. Waxauna u sheegay in uu rabo in ay kala tagaan, isna wixiisa uu dib iskugu hagaagsado. Intuuna safrin 2 bilood ka hor muddo shaqo laga rabay, ayaa waxa uu u sheegay in uu rabo in ay kala tagaan. Saaduu usoo noqdayna waxa uu ka war helay arrin uuna war ka hayn oo ah in la saaray maxkamad, lagana rabo lacag aad u fara badan maadaamuu gabadha dil u geystay. Waxayna timid iyadoo daanka kaga yaalo waxa u eg in Fred ama dhaawac lasoo gaadhsiiyey. Waxayna sheegtay inuu ku dhuftay Johnny Depp, laakiin maalintii ku xigtay waxaa la arkay iyada iyo saaxiibadeed oona qabin wax dhibaato ah. Sidaa ay tahayna Johnny Depp waa u dulqaatay. Waxauna sheegay inuu maxkamadda aqbalay dalabkeeda, kafali doono ama uu bixin doono isagoo siinaya Amber Heard $7 milyan. Laakiin intaas oo dhan ma uuna ka nabadgelin haddana. Hadday noqoto barnaamij ay kasoo fadhiisato TV-ga iyo weliba waraysiyaal la yeesha, iyadoona kusoo weerari jirtay qoraal iyo af wax walba oo ay karayso. Xitaa waxay gaadhsiisay heer Disney ay kala noqoto dowrkii uu ku lahaa filimka The Captain Jack Sparrow. Ugu dambeyntiina markii lasoo bandhigay labada dhinac cadeymahoogii, Amber Heard waxay keensatay qaar ka mid a faamilkeeda iyagoo ugu markhaati kacayay inay arkeen indhahana saareen isagoo dilaya ama dhibaato u geysanaya Johnny Depp. Johnny Deppna waxa uu cadeymo keenay codod ay u soo dirtay markii ay ka qaaday sawirada, iyadoo ugu hanjabaysa lana dagaalamaysa qaar ka mid a security-ga iyo weliba inay ku qaa'intay wax hal nin ka badan. Xukunkii maxkamadduna waxa uu kusoo gabagaboobay in Amber Heard la saaro ganaax dhan 15 milyan, Johnny Deppna uu noqday mid aan waxba samayn. Khasaaraha maadiga ee dhan 15 milyan waxaa u dheer khasaarihii ay khasaartay ninkeedii aadka u jeclaa, iyo weliba inay isku fadeexadaysay guud ahaan caalamka. Waayo qadiyaddan waxaa la socday dadka ku nool qaybo badan oo caalamka ka mid ah. Sidoo kale waxaa u sii dheeraa in ay qaaday 2 cudur inta ay ku jirtay maxkamadda dhexdeeda. Labadaa cudur oo depression iyo stress iyo waxyaabahan la kala garanayn. Waxaana ugu dambeyntii dhakhtarada nafsigu ay sheegeen inay ka cabanayso xaalad ah inayna waxba ama muddo badan ayna sii joogi karin ama ku sugnaan karin hal xaalad, oo ay tahay qof aan wax samira lahayn. Muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. Adiga say kula tahay gabadhan? Fadlan hadaa channelka ku cusub tahay subscribe saar, videogana like saar. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Intaa ku kulmi doona muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa peace.